يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. داوديال السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسو دوادا مركلة iyo barnaamijkeeni wada culimada. Daawadayaal waxaan ku soo jirnay sooyaalkii iyo waayihii waxbarashada Qur'aanka Kariimka ah ee magaalada Laascaanood. waxaynu labadii xalqadood u horreeyay ku soo qaadanay wixii ku horeeyay 1990 ilaa 1980 sidii Qur'aanka magaalada Sool ama magaalada Laascaanood Qur'aanka looga dhigan jiray macallimiintii dhigi jirtay. waxaynu marxaladda uga soo gudbaynaa macallimiintii u dambeysay 2000 iyo wixii ka dambeeyay magaalada Laascaanood ka dhigay Qur'aanka isla markaana aasaasay maraakiis iyo madaaris Qur'aanka Kariimka lagu dhigo. sida daawada aragtaan waxaa barnaamijka caawin uga casuuman Sheekh Aadan oo kamid ah macallimiintaas ugu horeyn igula soo dhaweeyay Sheekh Aadan barnaamijka Sheekh Aadan ku soo dhaweey barnaamijka wada culimada. حياك الله. ugu horeyn Sheekhana intaynan u gudagelin bal madrasada iyo asaaskeedii iyo xilligii aad ku soo biirtay sooyaalka ama waayaha waxbarashada Qur'aanka Kariimka ugu horeyn waxaad xog naga siisaa dhalashadaadii halka ku dhalatay iyo taariikhdaada kooban. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. marka koobaad Ilaahay subxaanahu wa tacaala mahad iska leh. runtii waa ka cudur daaranaya marka koobaad sheekh ma ihi macallin qur'aan oo runtii waliba mubtadi' baan ahay. waxaan jecelahay inaan wax yar oo kooban insha allahu tacaala anigoo runtii aan siira daatiya ama taariikh badan oo aan ka sheekeeyey oo hadda aniga igu saabsan aanan hayn. haddana dhalashadaydu waxay ahayd 1989 anigoo markaa ku dhashay baadiyaha tuulada la yidhaahdo Karin oo ka tirsan gobolka Sool. runtii muddo 4 sano kadib waqtigaan dhashay ayaan waxaan u wareegay magaalada tuulada Karin oo ilaa 50 kilomitir u jirta magaalada Laascaanood. halkaas oo aan runtii aan ku bilaabay waxbarashadaydii asaasiga ahayd hadayna noqon lahayd quraankii iyo iskoolaadkiiba. iyadoo halkaa markaa uu aabe Ilaahay subxaanahu wa tacaala cimrigiisa ha dheereeye oo markaa macalinka magaalada ahaa uu quraanka noogu bilaabay ilaa aanu maaragtay quraanka meel fiican soo gaadhnay kadibna aanu soo wareegnay magaalada Laascaanood. magaalada Laascaanood markii aan imi waxaan arday u noqday Sheekh Ali Aadan Dalmar iyo Sheekh Maxamed Sidiiq oo labadu hadda kamid yihiin culimada magaalooyinka magaalada Laascaanood oo waqtigaa kamid ahaa macallimiintii quraanka dhigi jiray. runtii intaa kadib markii aan quraanka bixamdillaahi subxaanahu wa tacaala aan xifdinay waxaan ku biirnay markaa xalaqaadkii markaa Sheekh quraanka qaabka u dhigan jirtay ma loox bay ahayd mise mushafkan caadiga laga dhigan jiray? may bidaayadii waxaan ku bilownay loox buu ahaa waqtigii koobaad aan tuulada joognay. intii ka dambeysay waliba waqti kooban baan loox ku dhigan jirnay laakiin intii badnayd waxaan ku dhiganay buug markii aan soo bilownay quraanka. طبعا كتابkan caadiga mushafka waxaa ka horeeyay inaan buug ku soo bilownay quraanka Kariimka ah oo higaadiisii iyo waxa la yiraahdo iyo qoraalkiisiiba intaan soo fariisanay quraanka yarar oo dhan soo dhiganay waxaan ku soo qaadanay buug baan ku soo dhiganay oo lagu qoriyay marba suuradaad marayso iyo aayadaha la qoriyay. marka inta wixii ka dambeeyayna magaalada markaan ku soo galay quraanka ayaan caadiga mushafka u qaadanay. كلي حفظي كدب علوم الشريعة شيخ عبد الناصر حاج أحمد أردديس أيام كم النقضي معد كفرقان والله وضع كوني لحدي عم بيروني كدب وحان مركب برامج القرآن كوادي ودن كيمن
adugu dhowr sano Imsadii? 2009 intaysan bilaabin 2008 aakhirkeedii ilaa 2011 dhexdiisiiba waqtigii ay qalalaasuhu ama kacdoonada ka bilowdeen waddanka Yemen ayaanu halkaas joognay annagoo markaa ku biirnay maraakiistii quraaniga ahaa ee halkaa ka jiray waddanka Yemen gaar ahaan magaalada Sanca iyadoo markaas dabcan quraanka dee markii hore aan dhiganay quraan aan axkaam fara badan iyo tajwiid xoog fara badan aan nologu dhigin ayaanu sii qaadanay walow macallimiintii markaana quraanka noo soo dhigay ayba ahaayeen macallimiintii markaas ugu fiicnaa xagga mustawaha tajwiidka magaalada Laascaanood haddana dee markaan Yemen tagnay runtii waxaan tagnay waaqic aad uga duwan waaqicii magaalada Laascaanood yaalay oo dee quraanka la iska saxayo ijaazaad ay jiraan tadriib fara badan lagu marinayo runtii halkaas oo aanu ka bilownay markii aanu xafsa aan dhamaynay tasiixeedii iyo tajwiidkeedii barnaamijkii qiraa'aadka ahaa sheekhii koowaad quraanka ama qiraa'aadka iyo bilaabina wuxuu ahaa sheekh la yidhaaho abu turaab al-Andalusi oo markaas waddanka Yemen joogay دار الحديث دماجنا مركز كأها شيخ القرآن كما قراءتك مقابل سنة أقابل سنة كتاب بقول لي النبع في القراءات السبع كتاب كاسو مركان أولدقي سوى هالكامر كان قراءتك تضبطها نوغسي لقي دي علماء فربضان وكلا دونا رنتي وكلا كلني دي هذاك الشيكين تود وحان في ليا دي حلقة ضبا وحان ملايين إني سنوقف في اللانين لكن انتي وح فربضان بان هالكان الحمد لله رب العالمين معلن كي كوهوري قرآن كدقيسي سكو بلعبا باهي بوها الله يرحمه ما يقولوا الحمد لله رب العالمين الله هو سيادي إله الكوك سو قارسي سو مركا أبو حسو قارسي تدوجس تدوجس وحي كدن بي انت انا حقولي هل معلم سينا معلمين كلا دوون معلمين كلا دوون باي دغاي وحاي دمي قران كشيخ مع الشيخ علي آدم إلهي سبحانه وتعالى حفظيه امين waxaan ka sii qayb qaatay xifdigiisa oo ay sii xifdisiyay Sheekh Maxamed Sidiiq oo markaad quraanka oo dhameystiran sodonkiisiba aad xifdiday alxamdulilah rabbil aalamiin qiraa'aadkana waxaad qaadatay intii aad joogtay intaan joogay Yemen waddanka Yemen waxaan kaloo sii qaatay oo qiraa'aadka aan sii dhameystiray 2011 markaan Yemen ka soo noqday waxaan in magaalada Hargeysa oo aan arday u noqday Sheekh Abdinaasir Yuusuf إلهي سبحانه وتعالى أبو مريم إلهي سبحانه وتعالى مركز الفردوس شيخ أساسي ورنتي أنتي وسن مركز كأساسين أنا جي دور أرضي أو قوان أنا لتشوني وجورجي سوقت كيشني وده سنة دوان هل كان كل تشوني قرأت بدنا نقادني الحمد لله سبحانه وتعالى لا شاطرين ديوان وسم مراجعيني إجازات كنا أنا كسي قادني واي مركي كوري سي شيخ خياد مدرسات معلم كان نقط ينقر مهد waxay ahayd markii koobaad aan macallin noqday 2008 dhexdeedii bay ahayd waxaan mudaris macallin ka noqday madrasad leeyahay madrasatu aflax oo ku taala magaalada Laascaanood oo sheekhu yahay Sheekh Xasan Caawid Ilaahi subhanahu wa ta'ala umriga ha u dheereey aamin aamin waa yahay markaskan hadda aad joogtay Laascaanood markasu shaatibiya hada asaasay bal ujeedooyinka sheekhu ku kalifinaad asaasto iyo wixii kugu dhaliyay horta runtii markaska imaam shaatibi waxaan aasaasnay 2012 bishii saddexaad iyadoo markaa ay hormuud ka ahaayeen asaaskiisii Sheekh Abdinaasir Xaaji Axmed iyo runtii culimada markaas ama maktabka dacwada ee magaalada Laascaanood ujeedooyinka dabcan markaska loo aasaasiyay ama aniga hamigeygu uu ahaa waxa kamid ahaa dabcan magaalada quraan waa lagu dhiganayay oo quraan de madrasada fara badan baa ka furnaa لكن برنامج كان قراءات كا تجويد كا تصحيح كنت وكيرا مركا بل إن مجالدي ديكور لو سوق هذا دائرتي ورنتي حاجة تصحيحة أما قرآن كإن إسكسحان أما قراءات كبا يسي لكتان أي سكتشرين بل إن لهيرو مركز هولها أما باهيها بوحين كري إن مجالدي لجهله معلمين القرآن كلفتي جودا إن لجو تدريبي ولجو صحو maaragtay lagu dhiso wax far badan insha alxamdulilah rabbil caalamiin waa nooga qabsoomeen kulay de mar hadii meel quraan la furayo ujeedada ugu weyn waxa weeyaan waa de nooleynta quraanka iyo wacyigiisa iyo de in ajyaal la soo saaro quraanka ilaahay subxaanahu wa ta'aala siina gudbinaya mustawahoodana uu fiican yahay way sheekhan inaga oo tixraacayna qodobka u dambeeyay waxa jira dhalinyaro fara badan
oo xiiseynaya ama jecel inay qur-aankii kariimka ay xifdiyaan maca dalikana ay sii raacsadaan qiraa'aadkii iyo culumtii kale qur-aanku intii ka suurtagala bal sheekh qaabka u habboon ee ardaygu qur-aanka uu u baran karo isla markaana qiraa'aadka kalena u gaari karayo waa su-aal fiican akhi alkariim runtii way jirtaa arday fara badan oo qur-aanka doonaysa inay xifdido laakiinse mararka qaarkood ariiqa dhexdiisa ama waddada dhexdiisa ku banjaraya ama ku harhaya amaba markay muddo wadaan oo ay ku daalaan ama meeshii ay rabeen inay gaari waayaan ka harhaya waxaan is leeyahay waddada ugu fiican ee qur-aanka ilaahay subxaana watacaala lagu baran karaya waxa weeyaan kow horta inaad hesho macallin qur-aanka kuu dhiga oo mustawihiisuna uu fiican yahay in aasaaska wax walba aasaas bay leeyihiin qur-aanka waxaa aasaas u ah oo furo u ah in aad barato akhrintiisa oo saxan hadday noqon lahayd higaadii oo wixii koobaad ah kadibna xuruuftii inaad saxdo oo intaadan xifdigii bilaabin inaad qur-aanka tajwiidkiisii iyo xuruuftiisii sidii culimmadii horena ay ahaayeen oo طabcan qabla shuruuci awala an yaclamuu makhaarij alxuruufi fawaajibun calayhim muxatamuu qabla shuruuci awala an yaclamuu makhaarij alxuruufi wasifaati marka qofku markuu higaada barto ama intuu higaada ugu dhex jiraba inuu tajwiidkii iyo nudqigii u hagaajiyo kadib markuu aasaaska qur-aanka inuu si fiican u akrin karayo u sugnaato ama ay u suganto waa inuu markaasi xifdiga qur-aanka uu kaashado macallin xifdisiin kara isaguna xifdisan garanayana asaaliibtii qur-aanka ilaahay subxana watacaala loo xifdin karayay waxaa ka mid ah sulam dee dabcan qur-aanka ilaahay subxaana watacaala isagoo fudud haddana waddo loo maro oo lagu xifdiyo oo kuu fududaynaysa ama uu kuu fududaanaya haddaad waddada martid baa jirta qofku dee qur-aanka xifdintiisu waxay ka dhigan tahay ilmaha yara dhashay ee dhaqaajinaya guurguuranaya ee koraya ee saa u soconaya qofkuna inuu mustawihiisa ama awoodiisa uu garanayo waa laga maarmaan dadka ilaahay subxana watacaalana ma uu simeynayo dee dad baa jira xifdigoodu iyo mawhibo ilaahay subxaana watacaala uu siiyo xifdi fiican leh dadkaas waxa la yidhaaho qof wali markaa markuu mustawihiisa garto oo uu garanayo dee mustawihiisaasuu ku soconaya adoo aan itqaanin oo qur-aankii xifdinna qiraa'aad iyo xaggaa sare uma sii gudbi kartid waxa koobaad ama asaaska ahi waa inaad xifdi qirada waddankeenna dabcan waddankeenna waxaa lagu dhigtaa riwaayatu xafs can caasim marka qirada aynu dhiganno baad itqaaninaysaa markaad habuu sugayaa mutuunta la xidhiidha oo tajwiidka laga bartaad xifdiyeysaa sida tuxfihii iyo jazarihii oo kale kadibna waxaad usii gudbaysaa qiraa'aadkii adoo ka bilaabaya inaad mutuuntii qiraa'aadka xifdido sida shaatibihii iyo duradii oo kale oo runtii ah furaha qiraa'aadka waay qofka sheekh isle qur-aankii aan ilaawin ee xifdiyey maxaad isleedahay inuu maalintii miqdaar intee lagu akhriyo ayuu qur-aankiisa ugu sugnaan karaa akhi sheekh shihaab runtii shihaabudiin waxa weeyaan waa meesha runtii lagu kala tegayo bointigan ah qur-aanka qofku inuu sii hayo oo uu xifdiga uu sii ilaaliyo dadku way xifdiyayaan qur-aankii runtii aad baa loo xifdiyaya haddana waxaa laga yaabaa qofku sanadkaa uu madrasada ka tago ama 2 sano kadib inuu qur-aankiiba u ka kala yaaco dabcan qofku waa inuu istishcaaro marka koowaad ilaahay subxaana watacaala qiimaha iyo waxa uu siiyey waa in horta dareenkaasi uu ku jiro kitaabka ilaahay baad xifdiday waa nicmo aad iyo aad u weyn in badan oo dad ka midina ma haystaan saa daraaddeed marka horeba waa inay qalbigaaga ay ka buuxdo oo ku jirto inaad ilaashato yani dareenkaasa wuxuu keensanayaa mar kastaba inaad nicmada ilaalinteeda ay kugu jirto qofku imaa inuu macallin yahay oo uu qur-aanka ilaahay subxaana watacaala uu dhigayo oo arday la subcinayo oo dee uu leeyahay maaragtay maalin kasta qur-aankii uu ku dhex jiro imaa inuu arday yahay oo qur-aankii uu sii wado oo dhiganayo labadaa wixii ka soo hadhay runtii anigu waxaan ii muuqata ama kula yani isleeyahay waxa ugu fiican waxa weeyaan waa inuu samaysto majmuuca ama cid garab ku siinaysa oo runtii ku garab taagan xifdinta ama ilaalinta xifdigaas tusaale ahaan hadda dee dabcan waqti casriya la gaadhay majmuuco intaad samaysataan group oo kale tusaale ahaan aad maalintiiba ugu yaraan 5 juz oo kale 4 juz aad ama ugu yaraan 3 juz oo kale aad ku muraajacaynaysaan oo joogto ah oo lagula xisaabtamayo haddii ay kuu suurtageli karto inaad subcis joogto ah lahaato
oo aad yeelato oo maalin kasta aad la sociso rag asxaab oo aad maaragtay ilaa inta uu qofku xifdigu ka gaarayo dee mustawe inta adoo dhabada maraya adigoo maaragtay waxa weeyaan aan u baahnayn kitaab aad iska akhrinayso oo joogtaynayso waxaan ii muuqata aan ku talinayaa in qofku yeesho wardi fiican oo ugu yaraan 3 juz markay yartahay si 10 cishaba aad mar u dhamaystirto way sheekh hadda macallin baad waxaad u dhigtaa ardayda quraan u dhigtaa kulli caqabad waa jiraan dhanka ardayda ka haysta bal caqabadaha ardayda dhankooda ka haysta mid iyo laba sheekh waxaad nagu soo koobi karto wallaahi akhi runtii caqabaduhu طبعا dee waaqicaynu ku noolahay markaynu eegno caqabaduhu way fara badan yihiin laakiin haddaan soo ururiyo waxa ugu dhibta badan ama caqabada koowaad ee daa'irta maanta haysataa waxa weeyaan waa horumarka tiknoolajiyada ee la gaaray weeyaan dhibta u badan social hadduu noqdo aaladahan isticmaalaya iyadoo sheekh musoo waxtar weey iyadoo طبعا daa'irta caqabad bay ku tahay sababta waa silaaxun duu xadayn weey marka ka faa'iideysigeedii iyo in laga faa'iideysto aaladan cusub dhalinyarada kuma badna bal dhinaca kale ama inay ku mashquulaan waqti inta badan ay geemam iyo waxyaalo noocaas kale iskaga lumiyaan ayay u badan tahay marka horta taas waa caqabad weyn oo runtii daa'irta waalidka waxaan kula talin lahaa inay bahashaas ay ka kantaroolaan oo aad iyo aad caqabadaas waa mid talabaad oo runtii caqabadaha ka mid ah kusoo wajahaya waaqica oo isbedelay yani habkii quraanka loo baran jiray iyo duruuftii lagu noolaa waagii hore iyo waagan hadda sida aynu hadda u nool lahay aynu joogno oo runtii aad iyo aad u kala gedisan oo waxaa laga yaabaa waqtiyadii annagu aan quraanka dhigan jirnay quraanka ugu qiimo badnaa waxa waaqica yaala oo la dhigan jiray laakiin hadda waxyaalo kale oo fara badan oo dhalinyaradii maaragtay ama marka la yimaado ay isleeyihiin suuq lacmalkii wadii ka anfacaya oo maadigii waxyaalo noocaas oo kale ah oo runtii dadka saytareeyay ama qabsaday waa la oran karaa qodobka u dambeeya aan isleeyahay waa caqabadaha uu ka mid yahay waxaa ka mid ah goobaha qur'aanka oo runtii mustawihii ama habkii la rabay inay noqdaan hadday noqon lahayd xagga dhismaha hadday noqon lahayd xagga macallimiinta oo runtii tababaro u baahan marka la environmentiga ama deegaanka qur'aanku uu joogana iyadana caqabado fara badan baad kala kulmaysaa oo runtii isleedahay in wax laga qabto ayay ku fiicnaan lahayd jazaak allahu khayran sheekh waxaynu ku dhownahay gunaanadkii iyo gabagabadii barnaamijka hal talo ama wacyigelin ah oo aad siinayso waalidiinta iyo ardaydaba inuu waqti ka faa'iidaysana sheekh waa akhi alkariim runtii talooyinka dee macallin kusoo dhex jiray hadda muddadii u dambeysay 10 sano u dambeeyay hadda macallin baan ahaa 2010 baan markii hore aan macallimadii runtii 2008 aan bilaabay kadib dee fatradii aan ardayga ahaa iga kala go'day waxa ku dhex jiray waqtiyo kala duwan oo aan macallin ahaa oo waddanka Yemen xataa aan mar goobtii aan dhigan jirnay aan macallin ka noqday inta dee macallin طبعا 10 sano hadda u dambeeyay kusoo dhex jiray oo waaqacaas adag la nool طبعا talooyin dee badan waaya laakiin haddaan soo ururiyo muassasaadka qur'aaniga ah runtii waxaan kula talin lahaa oo iyaga si gaar ah طبعا waxay ka kooban tahay goobaha quraanku iyo goob kasta tacliimiga waa waalid iyo arday iyo goobta waxbarashada marka goobta waxbarashada oo طبعا macallinkii iyo muassasadii hadduu طبعا uu de ku guda jiro marka muassaso tacliimi uu ka tirsan yahay hadduu macallin gaar ah uu yahayba waxaan kula talin lahaa kow marka koobaad in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ikhlaaska lagu dadaalo oo afdal shay oo adduunka yaala baynu gacanta ku haynaa marka in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aynu aad iyo aad isaga ilaalino quraankan aynu dhigayno in ikhlaaskeena iyo niyadeena markasta aynu muraajacayno limaada markasta aynu isdaba hayno maxaynu quraanka u dhigaynaa taas waa koobaad talabaad cilmigu isma taago goobaha quraanka lagu dhigo ama mas'uuliyiinta in ay ka warhayaan macallimiintooda oo macallinku طبعا quraan dhigistu ama inaad quraan dhigayso waa xirfad weeyaan xirfadaasna waxay u baahan tahay markasta in la helo kor u qaadisteeda iyo dhisideeda iyo wixii cusub in macallinka lagu beeriyo in macallimiinta la tadriibiyo oo la tababaro oo kor loo qaado mustawahooda macallinkuna uu fahmo inuu u baahan yahay inuu markasta kor isu qaado oo aqoontu isma taagtee haddaad macallin quraan tahay oo arday maaragtay yar wax u dhigayso
waxaa la rabaa aduguna inaad sii wado waxbarashadii quraanka dad xifsan tahay طبعا أنا كم بطلي معلنا قرآن حفظنين وقرآن لقيه هدي طبعا معلنك وسن قرآن كحفظنين إنه قرآن كحفظيه هدي وقراءات كيسيه وذكريه وسيوده هدي كلا القراءة عص عمر كادجي إنه سوى عن إتقانيه علومته وأردج وباهية والتفسير كإيو تجويد كإيو علومتها أصلا معلنك والله مرمان هي اللغة دي وكله إنه سفي عن ومعلنك وسجدسه وحن كوسو أورونيا أما كوسو كوبيا حاجة مركز لقاها اللي مؤسسات كإيو جوابها قرآنك علاقة في عن إلى لي لنيو دتك المها ولي الأمر جوا دتك المها دلي إن علاقة في على لي شو وحرير كي ناس وضع حرير لسان وضع شوكتين لسان المها يراد كده لسان وإن شاء الله تعالى مرفع عن وقت إنه دلنا يا هدان معلن كأما وحلي راه أرضي عن إمادو أرضي قرآن كريم كأبرنا يا ورتا شيء كوباد اللي جربه وحاويا وإنه هرت فهمه وحأبرنا يا إنه يهي وحقوق قهر السنة هذه ما أنت القرآن كلية دجانا يسوع وكوقف ليه حقيقة إن هذا قون كلا براتو يعني ما هم معناه إن هذا قون كلا أما هذا وحيالها كلا يعني أن لجود ديده أما أن ديده إنه ما هم معناه لكن إن المركز تأرنين قرآن كلية ميو أباهيه رنتي أردق ميو أباهيه قرآن كلية أما ميو كوف ليه هاي سلام ربنا دعنا ما كم إذا نمعلنا أيام إيش كيني مركا وحيري هويا وحقيقي كنتي عنق ير أما قبل يربي كنتي مركي آن دور بلده هي أو ألف كي آن قاعد ولا يقول حشرة أي يصير هويا وحن ربعين اللي قبل ير سكول جيو ده هويا هذا وما بهني قبل ده إنه وقت سينه أو إنه قرآن كأساس كيس أما إنه كرس وقادنه رنتي وحكلا كل ما أري رنتي أنا وأنا مركي أكون فرحين معلم كنا رنتي على سوين كنا نقضي أما وقعد ولا يابي waxay ku tiri hooyo ku habsaamaya way ku habsaamaysaa quraanka ku habsaamaysa marka runtii de waxay ku tusinaysaa yani horumar ku gaari mayso oo khayrkeed kaga haraysa oo de iskoolkii ba ka maqan marka saadaradeed marka waa inuu ardaygu marka uu fahmo in waxa uu baranaya uu yahay wixii ugu qiimaha badnaa hadduu iska daayo wax kale oo dhan quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaliya u tafarruqo Ilaahay subhanahu wa ta'ala adduun iyo aakhiro ma dayacayo wuuna guuleysanaya waxaan ardayda kula dardaarmaya waqtigu waa qaali waxa aad haysataan waxa ugu qaalisan waqtiga maanta waad yar tahay quraankii baad ku dhex jirtaa madrasadii baad joogtaa laakiin muddo kooban kadib waad ka dhex baxaysaa waxaad u baxaysaa macallinimo ama inaad weynaato mas'uuliyad ku fuuleen marka intaad jaaniska aad yar tahay ka faa'iideyso Ilaahay subhanahu wa ta'ala ana waxaan uga baryaynaa dhamaan ardadeena quraanka baranaysa iyo macallimiinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu sugo oo khayrka ku sugo daawadayaal intaas ayaynu ku soo koobanaa xalqadeeni caawa intaynan xalqada soo xidhin waxaanu sheekha ka codsanaynaa maadaama macallin quraan yahay inuu nagu soo xidho aayad min dhikri al-hakim isagoo waliba inagu akhrin doona riwaayad warash ama riwaayad kalaba laakiin xafsa ahayn تفضل شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم
فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. جزاه الله خيرا. دawadayaal xalqadeeni caawa intaas ayaynu ku saafmeerinaa waxaa martina ugu ahaa sheekh aadan cabdilaahi xaaji axmed oo ka mid ah macallimiinta magaalada Laascaanood. sheekhana jazakallahu khayran aad iyo aad ayaan ka mahad celinaynaa sida fiican ee aad nagu soo qayb qaadatay barnaamijka.